تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu ku jirnay walaalayaal barnaamijkeenii qisooyinka ambiyada. waxaynu ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam, isaga oo hooyadii intay meel dhigtay uu harraaday, dabeedna hooyadii biyo ay u doontay, iyada oo ku maqan, dabeedna lugihiisii meeshuu la dhacayay lugaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo saaray biyaha caanka ah ee loo yaqaano biyaha zamsamka ee barakaysan ee xujaydu ay soo qaataan markay xajka iyo cumrada ay ka imanayaan. biyahaas in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo saaray meeshii nabiyullaahi ismaaciil lugaha uu la dhacayay, karaameyn ilaahay subxaanahu watacaala uu sharfayo, uu karaameynayo gabadha saalixadda ah ee dhashay ee haajar ah, iyo isaga iyo sharaf ilaahay subxaanahu watacaala uu sharfayo. gabadhaasna waynu tilmaanay iimaankeedu siduu u sarreeyey, waynu tilmaanay yaqiinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ku qabtaa sida waxaweyaan ugu cuslaa, sida waxaweyaan ibraahim calayhi salaam, nabiyullahi ibraahim calayhi salaam oo ku yidhi halkaas ayaan idinkaga tegayaa oo waxaweye aad ku sugnaanaysaan, ilaahay baana ifaray, sida waxaweyaan ay ugu hogaansatay iyo siday u tiri waxaweyaan ilaahay subxaanahu watacaala nama dayacayo. waana darsi ay ka faa'iidaysanayso gabadh kasta oo muslimad ah, oo ay ogaanayso mar kastoo ilaahay subxaanahu watacaala ay ku raali noqoto, mar kasta oo waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaariyey mu'minaadka ee khayr iyo wanaag ahaatay gabadha muslimadii ay ku qanacdo, mar kasta oo waxa ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay dumarka waxaweye muslimaadka ah ee kasoo baxaya waxaweye waajibaadka la faray, ee is asturaya, ee dhowrsanaanta iyo asturnaanta iyo wanaagga ku sifaysan, ee islaamka waxaweye sidiisii waxaweye u qaadanaya sidii ilaahay u doonaya subxaanahu watacaala. ilaahay marnaba inaanu dayacaynin wax kastoo ay ka cabanayaan ama wax kastoo ay tabanayaanba in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waxaweyaan yani samata saarayo, oo ilaahay subxaanahu watacaala u gargaarayo, oo wax kastoo ay ka baqayaan ilaahay uu ka ilaalinayo subxaanahu watacaala. waana sida ku dhacday gabadhan saalixadda wanaagsan ee haajar. meel cidlo aqlaab ay joogtay, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sharfay ceelka dhan ee bi'ru zamzam in ilaahay subxaanahu watacaala uu dilaaciyo. kadalika aydan safa wal marwa, labada buurood ee waaweyn ee dadku waxaweyaan dadka xajka iyo cumrada ku jira ay dhex maraan, labada buurood inay sabab u ahayd iyadu in halkaa la maro oo la dhex gucleeyo. taasna waxa kale aynu ka faa'iidaysanayna islaamku siduu u cizeeyey ee u sharfay ee u karaameeyey gabadha muslimadda iyo booska wanaagsan ee uu dhigay. laakiin gaalo hadh iyo habeen waxay ku celceliyaan islaamku wuu dulmiyey gabadha, islaamku xuquuqdii dumarku ay lahaayeen meel buu kaga dhacay, islaamku waxaweyaan gabadha waxba uma ogola, waxyaala noocaas ay ku celceliyaan. haddii loo fiirsadana waxaynu tilmaanay in diinta islaamku ay tahay diinta keliya ee xuquuqdii ugu wanaagsaneed dumarka waxaweye siisay. qofkuna inuu ilaahay subxaanahu watacaala addoon u noqdo oo u hogaansamo, xataa waxa uu fahmi waayo asbaabteeda marmarka qaarkood uu ilaahay subxaanahu watacaala u tala saarto u idhaahdo min allaahi alamru وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. سيدي أهل العلم قاركود أي ورنشرين زوري غير كيبا من الله الأمر حق إلهي سبحانه وتعالى أمرك ينهي يقبا أي كسو فلان، وعلى الرسول البلاغ رسول كان وحا صارا إنو إنه سوى قارسيئون oo uu noqdo hamsatu wasli isku kan xidhaya inaga ilaahay subxaanahu watacaala iyo awaamirta ilaahay naga doonayay. wacalayna inagana waxayna saaran alridaa watasliim, inaynu ku raali noqono oo aynu hogaansano amarka ilaahay tabaaraka watacaala. gabadha muslimadda marka walaalayaal waxaa laga doonayaa inay u hogaansanto ilaahay tabaaraka watacaala, oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ku xidhnaato, oo ay ogaato ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu u doona inay tahay wixii ugu wanaagsanaa ee ugu khayrka badnaa ee ugu fadliga badnaa, in ikhtibaara iyo imtixaan oo la is ibtileynayo oo adduunkan inta la joogo la isku dhibayo la is eegayana way ku jirtaa meesha oo dadku ay ku kala baxayaan oo si hadhow loo kala noqdo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir. ilaahay subxaanahu watacaala inaga mid dhigo fariiqa jannada gelaya, ana inaga badbaadiyo ilaahay tabaaraka watacaala naarta. walaalayaal waxaa dhacday reer la odhan jiray jurhum oo carab ahaa ayaa waxa ay dooneen bal hadda in ay guuraan, iyagoo markaa safar socdaala ku jira ayaa waxay arkeen meel shishe, waxay ka arkeen shimbiro meel ku wareegaya oo dul waxaweyaan maraya oo dul duulaya ayay arkeen. markaasay yidhahdeen walle shimbirahaasi waxay ku wareegayaan waa maxay? waa meel biyo yaalaan, waa meel biyo yaalaan ayay ku wareegayaan shimbirahaasi. markaasay noqotay bal hadda inay xaggii shimbiraha inay usoo kacaan. markii bay la kulmeen haajar oo ilmaheedii ismaaciil haysata
ceelkii biyihii bi'ru zamzamna waxa weeyaan haysato oo ilaahay subxaanahu watacaala ceelkaasna uu usoo saaray markaasay ka idin dalbeen oo ku yidhahdeen ma kula degi karnaa haajaray markaasay tiri haa waad ila degi kartaan laakiin ase yeeshee shardi waxaan dhiganayaa in ceelkaas anigu aan lahaado idinkuna waad ka cabi kartaan laakiin ceelka anaa iskale iguma qabsan kartaan waa ceel ilaahay subxaanahu watacaala aniga isiiyo igu arsaaqay wixii aad doontaan laakiin ka caba saa doontaan u gala laakiin aniga ayaa ceelkaa iskale cid uga qabsan kartaa ma jirto waan aqbalnay bay idhahdeen shardigii way dabadna la degeen marka reerihii baa marka halkaa maqlay oo la isu soo sheegay oo waxay noqotay markaa meel ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay gabadhaa saalixadda oo halkaa ay joogto in dadka ilaahay kusoo badiyo oo waxa weeye si aanay wax weeye u dareemin waxshe iyo waxa weeyaan yani inay meesha ka qaloto iyo wixii lamid ah waana tii markii hore sheegtay tiri idan laa yudayicuna allah ilahayna ma dayacayo subxaanahu watacaala waxaa dhacday nabiyullaahi ibraahim waxaan u jeedaa nabiyullahi ismaaciil uu weynaaday oo inan weyn buu noqday oo dhalinyaro ah waxa uu isticmaali jiray fardafuul oo fardaha iyo aad iyo aad u jeclaa bal waxaa la yidhahdaa ciddii ugu horreysay ee fardaha fuushaa wuxuu ahaa ismaaciil calayhi salaam waxaa intaa dabadeed dhacday dabcan hooyadii way dhimatay haajar waxaana lagu aasay waxa weeyaan maka meelihii ay deganaayeen meel u dhow baa lagu aasay waxa markaa dhacday wuu weynaaday wuu guursaday waxa la yidhahdaa wuxuu ka guursaday reerkii jurhum ee la soo degay waxaana la yidhahdaa maya khaarijka waxa weeye reer jurhum cid aan ahayn ayuu ka guursaday laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay in uu iyaga ka bartay af carabiga oo nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam isagu carab ma ahayn nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam isagu carab ma ahayn laakiin ismaaciil calayhi salaam ayaa isagu caraboobay oo isagu carab buu noqda oo carabta culamadu waxay u qiimeeyaan laba qaybood oo carab loo yaqaano alcarabu albaa'ida carabtii dhammaatay ee baaba'day waxa weeyaan waa labadii kooxood aynu kasoo sheegnay caad iyo thamuud labadaa kooxood carab bay ahaayeen caad wanaga sheegeen inay degnaan jireen axqaaf meelahan waxa weeyaan yaman inay degnaan jireen marka dad caraba ay ahaayeen thamuudna in waxa weeyaan ay degnaan jireen hadda meelahan hadda loo yaqaano madaa'in thamuud ama madaa'in saalix tabuuk u dhow yani sacuudiga dhexdiisa meel waxa weeye ka mid ah oo xuduudka u dhow urdun meesha ayna degnaan jireen calaa kulli xaal labadaa kooxood cid ka hadhay ma jirto fahal taraa lahu min baaqi ayaa ilahay yidhi subxaana watacaala cid ka hadhay ma jirto carabtaas markaa saasay ku dhammaatay carab labaad baa jirta nooc labaad oo waa maxay waa kooxda waxa weeyaan alcarab almustacriba la yidhahdo carabtii waxa weeyaan carabowday ee dib waxa weye ka noqotay carabta waxaana ka mid ah ama waxa aabba u ahaa carabtaas nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam waana kooxdii nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam waa carabtii nebigu uu ka tirsanaa calayhi salatu wasalaam ee quraysh ay ka isiran tahayba nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka horta intaanan taa dhaafin nabiyullahi ismaaciil carabta markaa af carabiga wuxuu ka bartay reer jurhum buu ka bartay sidaasna markaa isaga carab uu ku noqday caruurtiisina carab ay ku noqdeen quraysh iyo nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay ka isiran yihiin nabiyullahi ismaaciil calayhi assalaam markii uu guursaday nabi ismaaciil maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa soo maray nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo bal hadda indheenaya bal xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida ay yihiin dabeedna guriga ayuu yimi dabeedna wuxuu la kulmay gabadhii guriga joogta markaasuu yidhi meey ismaaciil markaasay ku tiri ma joogo waa maqan yahay markaasuu ku yidhi iska warrama xaaladii baad ku sugantihiin markaasay tiri xaalad dhibaato ah baan ku sugannahay aad iyo aad baan waxa weeye dhibaato badan baanu dareemaynaa dhib badan baanu dareemaynaa xaalad adag baanu ku sugannahay mashaakil bay marka ay u sheegatay iyo cabashooyin fara badan markaasuu ku yidhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waxaad ku tirahdaa ismaaciil markuu ku imaado salaan iga gaarsii oday noocay noocaasa kusoo salaamaya ku dhe waxaanad ku tirahdaa wuxuu ku yidhi odaygii meesha maraya ku salaamayay wuxuu ku yidhi gurigaaga albaabkiisa bedel wuu iska tegey hadhow ismaaciil yimi gabadhiga marka hadhow wuxuu dareemay ismaaciil in cid guriga ay timi malaa raad iyo wuxuu ku gartayba markaasuu cid baa kuu timi markaasay tiri haa markaasuu ku yidhi bal hadda ii sifee markaasay tiri oday nooca iyo nooca iyo nooca iyo noocaas ayaa ii yimi markaasaa wuxuu ku yidhi ismaaciil wax fariina miyuu ii kaa fara markaasay tiri haa wuxuu igu yidhi igu salaan waxaanad ku tiraahdaa albaabka gurigaaga bedel markaasuu ma hubtaa saasuu ku yidhi haa saasuu ku yidhi idan waan ku furayaa buu yidhi waayo albaabka guriga waxa weye aabbahay uu sheegayaa waa adiga gurigayga albaabkiisuna waa adiga markaa aabbe markaa wuxuu faray inaan adiga ku furo sidii wadoodna ku sii daayey waxay noqotay maalin labaad beri dambe intuu mid kala guursaday nabiyullahi ismaaciil inuu soo maray haddana nebi ibraahim calayhi salaam mar dambe dabeedna uu la kulmay gabadhii labaad dabeedna uu guriga ku garaacay uu salaamay ismaaciil ma joogaa may haddaba salaan iga gaarsiiyey waxaanad ku tiraahdaa markuu dabcan waraystay oo ku yidhi xaaladiina ka warrama ilaahay bay ammaantay subxaana watacaala nimco iyo bashashay barwaaqaanu ku sugannahay bay tiri wuxuu ku yidhi yani waxaad iga gaarsiisaa salaan waxaanad ku tiraahdaa wuxuu ku yidhi gurigaaga albaabkiisa adkayso
oo si fiican waxa weeyaan adkayso si fiican u hayso may fahmin dabcan dee gabadhu waxaa luqsiga uga jeedo ama sarbeebta wuxuu sarbeebayo albaabka hadhowba sidiisi lag ismaaciilimi uu waraystay dadna waxay ku tiri intii bay u sheegtay dabeedna waxay ku tiri waxa weeyaan wuxuu ku yiri albaabkaaga yani gurigaaga albaabkiisa adkayso markaasuu yiri albaabku adiga waxaanu aabahay fara inaan ku haysto culimada halka walaalay waxyaalaha ay kala baxeen waxa kamid ah gabadha in waxa weeyaan ay u haboon tahay inaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala muuyid kale inaanay u caban yani مثلا هذا قبضة هراء اشتكدي بفربضيسة واحد دبات أنا كسوانها نحن كسوانها يعني وقت حالات أدق بنا كسوانها دباتوين بمركع الشجت بينما وحوي طلبات يدو عريرجا دباتوين كاد كل الدوم بين كنا نهاية دباتوين كاس يشرتو هذا إلهي حق يسوي عبني سبحانه وتعالى أنا ما هديني يسوي إن معذا يبشر كبراقة أي كسوانها هاي أي تلمام يسوي شيء يسوي إلهي سبحانه وتعالى ونوني معي مركوا حلقة في سنة يعني قبضنا مسلمات ده إنه كوها بونتهاي إنه كوها بونتهاي بقى إنه كنت الدين النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام شرعي إنه وليمية إن وحويان إلهي سبحانه وتعالى لما هديه عبشنا قفكو إنانو بدين قفك دب ترسنا يانا أما دباتي وحي لما أي شرتنا ويدعي كرتا عدة تنتو أي خصيصه إن وحويان قفكو ده ولا تشتو سي وحويا تشدي وحي لما ده لكن وضي صامري أو سكوريستي أو ساتهين أو دبنا دباتي مشكلة دي لو شيء runtii dee fal haboon ma aha waana takeentinay ibraahim inuu ku yiraahdo gabadha iska siidaa marka walaalayaal runtii duruus fara badan iyo cibrooyin fara badan ayaa aynu ka faa'iideysanaynaa oo aynu kala baxaynaa qisadaas culus ee qisada nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil ba calayhim assalaam halkaas aynu ku joojinayna insha allah halqadan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام